imikana maanta waa qaybta koowaad ee taariikhda boqortooyada Roomaanka. barnaamijka waxaa soo saaray tarjumay idin lana socodsiinaya anigoo ah Cabduqaadir Maxamed. Carthage waxa uu ahaa gumaysto hore ee reer Fionia. magaalada waxaa la aasaasay qarnigii 9aad ka hor taariikhda Nabi Ciise. taariikhda markay ahayd 300 ka hor dhalashada Ciise waxa ay noqotay magaalada ugu weyn galbeedka Mediterranean-ka. Carthaginianku waxa ay ahaayeen kuwa ugu dhismaha qurxan uguna khibrada badan dhisida doomaha ama maraakiibta. waxa ay lahaayeen markabkii ugu weynaa ee xilligii dunida hore. dekada gudaha ee Carthage waxaa ku jiri kara 220 maraakiib. jihooyinka ganacsi ee Carthaginian waxa ay ku fideen badaha ku teedsan Mediterranean-ka. qortooyadii uu dhaxlay Alexander ayaa xukumi jirtay bariga halka uu Carthage maamuli jiray galbeedka. laakiin waxa ay u muuqdeen kuwa ku tartamayay kacdoonka awoodeed ee Roma. dagaaladii isdaba jooga ahaa Roma waxa ay ku jabisay kooxihii kula tartamayay Talyaaniga. dadkii u dhashay Talyaaniga ayaa la hoosgeeyay. 270kii taariikhda dhalashada Ciise ka hor Roma waxa ay ahayd magaalo udub dhaxaad u ah Talyaaniga. haddaba Roomaanku waxa ay indhaha saareen wax iyagu u muuqday indho sarcaad. Carthage waxa uu isu dhiibayaa jasiiradda isaga oo raalli ah. intii lagu jiray taariikhda
224 ka hor dhalashada Ciise, dagaal ayaa ka qarxay Sicilia ee ah jasiirad ku taala Mediterranean-ka. Waxa ayna ka mid tahay 20 gobol ee dalka Talyaaniga. waana dagaalkii ugu horeeyay ee ay foodo isdareen Romaanka iyo Carthaginiska. Romaanka ayaa si degdeg ah u dhisay markab. Dagaalo isdaba joog ah oo waaweyn ee dhinaca badda ah ayaa uga yimid xeebta Sicilia. markan Romaaniyiintu ma lahayn khibrad ay kaga hortagaan dagaalada maraakiibta ee dhinaca badda Sicilia kaga yimid. laakiin ugu dambeyn waa ay iska difaaceen si dhab ah. Carthage ayaa la jabiyay, Siciliana waxa ay sidaasi ku weysay Roma. sida Corsica iyo Sardinia. imika waa Carthage ta cusub, taariikh sanadeedkuna waa 218 ka hor dhalashada Ciise, dalkuna waa Spain. qaybta koowaad halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa ee ka waramaysa taariikhda boqortooyadii Romaanka. inta aynu qaybta labaad aynu ka gaari doono, waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan.